wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeeray xarunta laanta ilaalinta canshuuraha, xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliska iyo taalada dhagaxtuur oo dib u dhis ballaaran uu ku socdo. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale kormeeray xarunta tababarka booliska ee General Kaahi oo taliska boolisku ay ka dhisayaan guri loo diyaarinayo soo dhaweynta martida. Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa isxilqaan ku dhisay xarunta laanta ilaalinta canshuuraha, xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliska iyo guriga martida ee General Kaahi, iyadoo oo taliska asluubta uu gacanta ku hayo dhismaha taalada dhagaxtuur oo gabagaba maraya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa talisada booliska iyo asluubta ku bogaadiyay dib u dhiska dalka iyo gudashada waajibaadka ka saaran ka shaqaynta sugidda amniga dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Mudane Xasan Cali Khayre ayaa intii uu ku jiray kormeerka waxa uu xerada tababarka booliska General Kaahi ku booqday ciidamo loo diyaarinayo qayb qaadashada sugidda amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaaraha ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay dardargelinta amniga caasimadda oo lagu qabtay xarunta taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir. ayna ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha, maamulka gobolka Banaadir iyo taliska booliska Soomaaliyeed.